waxaynu eegi doonaa daawadayaal Saciid Cabdulaahi Dani oo gebi ahaanba ka takhalusay isku daygii iyo damicii dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ujeeddo kasta oo markaas ay ka lahayd dhanka gobolka Mudug. Ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay saldhigyadii markaasi ay joogeen ama markaasi hubka lagu daabulayay ee duleedka magaalada Gaalkacyo. Dhanka gobolka Barina waa la soo afjaray iyadana. Haddaba Saciid Cabdulaahi Dani ayaa halkaas u tagay dhiirigelinta iyo sidoo kale in uu la kulmo saraakiisha howlgalkaasi guuleystay hogaaminaysay. Waxaynu eegi doonaa oo kale daawadayaal safarkan iyo xogo kale oo xasaasi ah oo ku gadaameen. Safarka ayaa ku wehelinaya maxaa muuqaalo looga soo duubi laayahay oo warbaahinta Puntland ay u tabin laadahay. Safarkan xalay saqbarkii dhexe uu kaga soo baxay Saciid Cabdulaahi Dani magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Xagee xilligan ayuu ku sugan yahay maxaase uu ka qabtay ama markaasi uu ka sameynaya gudaha magaalada Gaalkacyo. Mafurimaha hore iyo goobihii markaasi ciidamadu ay la wareegeen ayuu gaari doonaa mise Gaalkacyo oo kaliya ayuu ku ekaa doonaa. Fariinta uu diri doonase maxay tahay? Warkan ayaan kugu soo koobi doonaa xogahaas oo dhan. soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka noolay gareeya si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadin si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ku baahneen soo gaaraan. aad ayaa u mahadsantiin. waayahay aynu ku horeyna daawadayaal madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani horta record ayuu jabiyay. dunida waxa uu tusay in Puntland ay tahay meesha kaliya ah ee Soomaaliya ka tirsan ee habeen badhkii saq dhexe la guuri karo in ka badan 250 kilomitir. ma jirto maamul goboleed kale oo ka tirsan Soomaaliya oo habeen mas'uuliyiin sidan ay u guuri karaan masaafo intaas le'eg oo waliba safar dhulka ah. ma jirto diyaarad uu raacay ama helicopter. haddaba Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu markaasi dunida tusiyay sida Puntland ay ammaan u tahay, sida nabadgelyada looga shaqeeyay. Puntland bilaash ma aysan la jirsanin 28 sano. waxa la geliyay tacab iyo dhiig wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ay ku dhinteen sidii ay u difaaciyeen ciidaas iyo dadkaas sidii ay nabad markaas u noqon lahaayeen oo habeenadii ay markaas si nabada ugu kala gooshi lahaayeen magaalooyinka gudaha Puntland. haddaba kadib markii howlgalkii uu dhamaaday dhawaan lagu soo afjaray ciidamadii BSF-ta iyo sidoo kale maleeshiyadii kale ee hubaysnayd ee dawladda dhexe ay dhaqaalaha ku siinaysay ee dhanka gobolka Mudug. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa aagagaasi soo gaadhay, waxaana ujeedka safarkiisa uu daaran yahay sidii uu u dhiirigelin lahaa saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay iyo sidoo kale dhammaan dadka deegaanka ee hawshaasi ka qayb qaatay. ciidanka Puntland oo kaliya ma ahayn waxa guushaasi gaadhay ee dadka shacabkaana qayb ay dabcan ka ahaayeen. dadka reer Puntland waxa lagu yaqaanaa in marka ay imaato faragelinta amniga ama nabadda Puntland inay hal dhinac uga soo wada horjeesadaan. marnaba gorgortan lagama geli karayo dhulka Puntland iyo sidoo kale nabadda maanta ay haystaan in la carqaladeeyo oo markaasi lagu duulo oo la kala qoqobo ama qabiil dadka markaasi la iskugu horkeeno. haddaba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani xalay goor dambe ayuu ka soo baxay magaalada Garowe waxa uuna markaasi u soo jeestay dhanka magaalada Gaalkacyo. sida ila xog ogaalaha ay sheegayaan waxa uu ku sugan yahay magaaladaasi Gaalkacyo. halkaas waxa uu ka bilaabay kulamada dadka shacabka odayaasha dhaqanka haweenka iyo sidoo kale saraakiishii hogaaminaysay howlgalkii midho dhalay ee markaasi lagu guuleystay ama laga guuleystay damicii dawladda dhexe iyo ciidamadii ay ku soo daabulaysay duleedka magaalada Gaalkacyo. waxaana wada ogeedeen in Saciid Cabdulaahi Dani mar kale uu u mahadceliyay kadib markii howlgalka maalinkii uu soo dhamaaday maalin ka hor oo markaas ku tilmaamay in ciidamadaas ay yihiin kuwa geesiyaalha sidii la doonayay ama laga filayayna ay sameeyeen. taas ayaa ka dhigan in Saciid Cabdulaahi Dani markani uu yahay saaxiibka dhabtaha ee ciidamada ammaanka ee Puntland. ciidanka difaaca ee Puntland haddii ay ka dagaalamayaan calmadow ama calmiskaad
ama sidoo kale xuduudada markaasi Puntland ay la wadaagtaan dhinacyada mar walba waxa uu yahay nin garab taagan si markaasi shakhsi ahna saraakiisha iyo askarta ula socda. dad badan ayaa isweydiinaya sidee Puntland sida dhibka yar ay ugu guuleysatay hawlgalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyadoo uusan dhiig ku daadanin iyadoo dhibaato xooggan aysan ka dhicin. haddaba waxani waa qorshe laga soo baaraandegay oo muddo dheer markaasi uu ka fikirayay Siciid Cabdulaahi Dani. dhowr jeer waa uu ka digay waasay khudbado kala duwan markaasi kaga hadlayay in ay jiraan dad ka xun amniga iyo nabadda maanta ka jirta Puntland. laakiin waxa uu yiri kama yeeli doono cid kasta oo isku dayda carqaladeynta amniga gacan bir ah ayaan ku qabanaynaa ayuu yiri. waxba ma uu qariyo oo markaasi ma ah ninkani nin damiciisa la gabada. haddaba Puntland waa ay guuleysatay waxa ayna soo afjartay isku daygii iyo rabitaankii dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre oo dharaaro tagay ku hanjabay in wiilka Boosaaso ama Raas Casayr jooga isagu uu matalo oo cid uu kala tashanaya aysan jirin. halkaas ayaa damciisi fashil oo markaas ku soo dhamaaday. inkasta oo Xamse Cabdi Barre uusan lahayn awood isagu uu markaas wax ku maamulo ama wax ku kala maareeyo oo dabcan ku hadlayo afka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo laftigiisa sharciyad ah haysanin mooyeene. haddana hadalkii uu jeediyay Siciid Cabdulaahi Dani ee uu jeediyay dowladda dhexe iyo in isku dayga ay ka wado gudaha Puntland ay joojiso waa uu fashilmay waa una kaga dhabeeyay. dabcan koodii ayaa fashilmay kiisana waa uu kaga dhabeeyay. waxa uu yiri laba dowladood halkaas kama wada shaqayn doonaan. waxa uu mamnuucay Siciid Cabdulaahi Dani in gudaha deegaanada Puntland lagu arko ciidamo aan ka tirsanayn kuwa ammaanka ee Puntland oo hub wata ama gaadiid dagaal oo markaas ku dhex lugeynaya ama dhex socda. dhammaan kuwaas waa la soo afjaray. maanta kadibna lama arki doono ciidan sheegta inay markaas yihiin ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hawlgallo ka sameynaya gudaha deegaanada Puntland. BSFT muddooyin badan markaas dadka dhagahooda ay maqli jireen ee la dhihi jiray awood ay leeyihiin waa rag tababaran. Mareykan ayaa soo tababaray, dowladda dhexe ayaa haatan maamulaysa, cid wax ka qaadi karta male. iyagii iyo weliba hubkoodiiba si tartiib ah ayaa loola wareegay oo taliskii ugu weynaa ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa markaas gacanta ku dhigay ciidanka ammaanka ee markaas Puntland. haddaba taas ayaa ka dhigan daawadayaal in Puntland ay la soo baxday awoodeedii. awoodan ma ahayn awood markii hore la muujin jiray. in badan oo ka mid ah dadka waxa ay lahaayeen Puntland ami fashilantaa oo waxa iska celin weysaa oo waxa ay lahaayeen kala furfurid ayaa ku socota. waxa loo adeegsanayaa hebelow rag calooshad u shaqaystayaal ah oo dhanka Puntland ka soo jeeda. laakiin Puntland waxa ay marisay dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamadii halkaas u dirtayba halkii Jubbaland ay marisay ciidankii dowladda ay u dirtay Raas Kamboni. Raas Kamboni kow ayayna soo daawanay dhamaadkii 2024 maanta oo lagu jiro 2026na waxaynu aragnay Raas Kamboni labaad oo ka dhacday Gaalkacyo iyo sidoo kale Bari. ciidamadii kale ee markaas iyagana waqtiga loo qabto waqtoodii waa ku dhamaaday. kuwa saldhigyadii lagala wareegay ayaa jira. dabcan warbixin kale ayaynu ku faaqidi doonaa hawsha ciidamada Jimcaale Takar oo isagana ku jira isla gudaha markaas deegaanka Liigla la yiraahdo oo duleedka magaalada Garowe iyo waxa uga qorshaysan arintaas warbixin gaar ah ayaynu ku faaqidi doonaa. dabcan muuqaalkeena dambe ayaan warbixintaas si qoto dheer iyadana ugu faahfaahin doonaa iyo dhanka Carmo oo ciidamadii taliska ugu weynaa ee ciidanka dowladda laga qabsaday maanta. arrimahaas oo dhan warbixinta ku xigta ayaan dabcan markaas ku qaada dhigi doonaa. haddaba Siciid Cabdulaahi Dani dhanka magaalada Gaalkacyo ayuu imaaday. welina ma jirto wax faahfaahin uu bixiyay. kulay waa laga warsugayaa goor kasta oo nagu soo aadan waa uu hadli karayaa oo warbaahinta waa uu la hadli karayaa. laakiin haatan muuqaalkan aan duubayno ma jirto wax markaasi warbixin ahaa oo safariis ku aadan oo bixiyay. laakiin Gaalkacyo ayuu weli ku sugan yahay. waayahay waxaan jeclahay muuqaalkan inaan markaasi ku soo gabagabayno
khudbaddii uu jeediyey marka uu soo dhammaaday howlgalkii lagu guulaystay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka